waxyaabo dhibaato ka qabsay ma jiraan ka soo maray kolley bulshada Soomaaliyeed way jiraan dhibaatooyin ka soo maray maxaad ka xasuutaa ay oo kale dad badan baa meeshay joogaan ay ilaa ay moogtay yaa waan ogahay ay marmar waxa la yiraahdaa xabasheedii Soomaali baratay ay marmarka qaar bay la soo hadlaan ay telefoonada kala soo hadlo waxa tahay waxyaabo badan bay dhahdeen markii markii waxa loo sheegay qofku waan ka cabanaya ruuxa salma shaqay habeen buu la soo hadlay xilli dambe waliba 12nadii wuxuu yiri ima garanaysid laakiin aad baan ku nacay aye oo diga cadaysiisa maxaan ku sameeyaa tan ku garanay wuxuu yiri habeen kasta oo jacaylkayga la hadlaya oo sheekada heer sare ay marayso unbaa tidaha hadagaagi aye marka saas adiga cadaysiisa sababtaas waayay dadkan bal wax ka sheegay iyo ku aqooni kulli sawdoon ha sheegto yaa badnaa yani inta ku jirto shaqada lacagta ba ku jirto ahriga weeriya waxay ugu leeyahay ka badnaa markan waxa kamid ah dad badan horta way la soo hadlaan garaan habeenkii bay la soo hadlaan rag u badan yihiin wiil yar oo dhalinyaro ah filayo codkiisu inay yar yahay habeen la soo hadlaan soomatiid gabadhii hadhaaya waxa rabay calaf way bulshada maxaa leedahay ku xiran codka maalin kasta dhagahooda ku xiran tahay maqla maxaa leedahay dad qaar way ku caayaan qaar way ku amaanaan qaar way ku habaaraan maxaad oran lahayd fariin maxaa ka gudbinaa wallahi kullay waxaan waa cod duuban tii ugu horeysayna ma yihi qaar badan baa iga horeeyay sida luqada xabashiga dadku intay waxaan la qabsanayaan ay baranayaan dabcan way jiri doontaa cayd iyo walba sababtoo ah anagu waan caytami jirnay markii ugu horeysay naagta xabashiga ku hadasha ay ka hadli jirtay laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan sheego bulshada Soomaaliyeed inay ogaadaan waxaan inuu yahay cod duuban oo aanu meesha fadhiyo ama aan waxba u qaban karin marmarka qaar bay la soo hadlay xoranayaan kaadka nooga shub kaadkii baa layga xidhay ii soo fur ya kolka anu kama shaqeeyo teelayga laakiin heshiis baan galay cod bay iga duubteen bulshada Soomaaliyeed si loogu sahlo isticmaalka telefoonada oo luqadooda ay ku dhageystaan wixii doonayaan ay halkaasi yani ka maamushaan ayuun baa loogu talagalay halka waxaan filayaa in bulshada Soomaaliyeed aan caawiyay halka ayda iyo habarkayga daayay waan leeyahay fadlan